asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran janalkeena. maantana waxaan idiin soo gudbin doonaa qiso cusub oo ka mid ah qisooyinka nebiyada, taasoo ah qisadii nebiyullaahi luut calayhi salaam. waa nebi ka mid ah ambiyadii alle subxaanahu wa tacaala, wuxuuna alle subxaanahu wa tacaala ku sheegay qur'aankiisa kariimka ah dhexdiisa. waa nebiyullaahi luut ibnu haaraan ibnu taarix. waxaa dhalay nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam walaalkiisa. sidoo kale wuxuu ahaa mid rumeeyey oo lana hijrooday nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam. kadibna wuxuu alle subxaanahu wa tacaala nebiyullaahi luut u soo diray qowm la yidhaahdo qowmu saduum si uu u hanuuniyo oo uu ugu soo yeero cibaadada alle subxaanahu wa tacaala. qowmkiisuna waxay ahaayeen qowm aad u xadgudbay oo ragga u tagi jiray ama u galmoon jiray, oo sidoo kale martida iyo safaraydana ku xadgudbi jiray oo kufsi iyo dhacba u geysan jiray. nebi luut ayaana aad ula yaabay qowmkiisa xumaantooda iyo xadgudubkooda. waxay ahaayeen dadka kuwii ugu faajirnimada iyo gaalnimada badnaa. waxay ahaayeen qowm isbaarooyinka dhigta oo xumaantana la jahra, oo qaarkoodna aysan qaarka kale ka reebaynin xumaanta. si aanan gabbasho lahayn ayay munkarka u samayn jireen. sidoo kale waxay ku dhaceen dembi iyo faaxisho aad u xun oo hortooda aysan jirin qowm kale oo horay ugu dhacay. waxay ahaayeen kuwo ragga wax ka daya oo u galmooda oo dumarkana ka fogaada. markaas buu wuxuu nebiyullaahi luut calayhi salaam ugu yeeray in ay ka tagaan munkaraadka iyo macaasidan iyo faaxishadan oo ay xalaalaysteen oo ay caado ka dhigteen. wuxuuna u sheegay in alle subxaanahu wa tacaala uu ciqaabtiisa ku soo dejin doono haddii ay ka waantoobi waayaan arrinkaani. kadibna waxaa nebi luut calayhi salaam rumeeyey ahlulbeydkiisa oo keliya, markii laga reebo xaaskiisa oo diiday in ay alle subxaanahu wa tacaala rumayso oo ka mid noqotay kuwii gaaloobay oo xadgudbay. waxayna qowmkiisu ku sii fogaadeen gaalnimadooda iyo caasinimadooda iyo faaxishadooda. markaas buu nebiyullaahi luut calayhi salaam bilaabay in uu ooga digo alle subxaanahu wa tacaala caradiisa iyo ciqaabkiisa. balse qowmkiisu kuma aysan waana qaadanin oo ma aysan rumaynin. waxayna bilaabeen in ay beeniyaan maalinka qiyaamaha iyo in uu alle subxaanahu wa tacaala cadaabi doono. kadibna markii ay quursadeen ayay qowmkiisu waxay ku yidhaahdeen, i'tinaa bicadaabillaahi in kunta min alsaadiqiin. bal inoola imow cadaabka alle ee aad sheegayso haddii aad run sheegayso. kadibna waxay ku yidhaahdeen, la'in lam tantahi yaa luutu latakuunanna min almukhrajiin. haddii aad ka hari weydo oo aad joojin weydo dacwaddan aad waddo, adiga iyo ahalkaagaba waxaan kaa saaraynaa magaaladan, dib dambena uguma soo laaban doontid. waxayna qowmu luut ku fogaadeen in ay handadaan nebigii alle oo ay ugu hanjabaan in ay dili doonaan ama ay ciqaabi doonaan. kadibna nebi luut ayaa habaaray calayhi salaam, wuxuuna yidhi, rabbi insurnii cala alqowmi alkaafiriin. ilaahayow iiga gargaar qowmkan gaalada ah. rabbi najinii wa ahlii mimaa yacmaluun. ilaahayow aniga iyo ahalkaygaba inaga badbaadi waxa ay samaynayaan. kadibna alle ayaa ducada ka aqbalay sayidana luut calayhi salaam. kadibna malaa'ig ayuu alle subxaanahu wa tacaala u soo diray qowmu luut si ay u halaagaan. malaa'igtaasoo kale ahayd jibriil iyo mikaa'iil iyo weliba israafiil. wuxuu alle subxaanahu wa tacaala u soo diray si ay ula dabagediyaan deegaanadooda, oo sidoo kale ay ku soo dejiyaan cadaab aad u daran.
markaas bay waxay malaa'igihii u tageen nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam si ay awlaadda ugu bishaareeyaan, iyagoona ku socday amar uu alle subxaanahu wa tacaala ku soo amray subxaanahu wa tacaala. waxay nebi ibraahim calayhi salaam u yimaadeen iyagoo isku soo ekaysiiyey rag aad u qurqurux badan, waxayna ugu bishaareeyeen wiil aad u wanaagsan kaasoo ahaa nebiyullaahi isxaaq calayhi salaam. sidoo kale isxaaq kadibna waxay ugu bishaareeyeen nebiyullaahi yacquub calayhi salaam. markaas buu nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam karaameeyey oo qadariyey oo raashiinna u soo diyaariyey. kadibna markii ay raashiinkii uu u soo diyaariyey ay cuni waayeen ayuu nebi ibraahim calayhi salaam ka baqay. markaas bay waxay ku yidhaahdeen, ha baqin, innagu waxaan nahay malaa'igta alle subxaanahu wa tacaala. innagu waxba ma cunno waxna ma cabno, waxaana u imaannay si aan u halaagno nebiyullaahi luut calayhi salaam qowmkiisa. wuxuuna alle subxaanahu wa tacaala ina soo faray in aan halaagno dadka deegaannadaas deggan ee faaxishada samayn jiray ee macaasidana xalaalaystay. kadibna wuxuu nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam u baqay wiilkii uu adeerka u ahaa oo uu u diray deegaannadaas dulmiga badan. markaas buu nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam malaa'igtii la dooday oo wuxuu ku yidhi, ma wuxuu alle subxaanahu wa tacaala halaagayaa deegaan ay ku sugan yihiin 300 oo muslimiin ah? markaas bay malaa'igtii ku yidhaahdeen, maya. kadibna nebi ibraahim ayaa bilaabay in uu tirada intaas ka dhimo oo uu isla su'aashaas ku celiyo ilaa uu ka soo gaaray, bal ka warrama, deegaan uu ku sugan yahay hal qof oo mu'min ah, alle miyuu la halaagayaa isaga iyo qowmkiisa dhammaantooda? markaas bay malaa'igtii ku yidhaahdeen, maya yaa nebiyallah. markaas buu nebi ibraahim calayhi salaam ku yidhi, luut ayaa deegaannadaas ku sugan, waana qof mu'min ah oo alle subxaanahu wa tacaala rumaysan. markaas bay malaa'igihii nebi ibraahim calayhi salaam ku dhaheen, innagu waan ognahay cidda ku sugan, waan badbaadin doonnaa isaga iyo ahalkiisaba markii laga reebo xaaskiisa. xaaskiisuna waa mid aanan alle subxaanahu wa tacaala rumaynin oo gaaladana difaacaysa. allena wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala, falammaa dahaba can ibraahiima alrawcu wajaa'athu albushraa yujaadilunaa fii qowmi luut. markii nebi ibraahim ay ka tagtay cabsidii uu dareemay markii ay raashiinkii uu u soo diyaariyey ay cuni waayeen oo malaa'igtuna ay ugu bishaareeyeen isxaaq iyo yacquub, wuxuu bilaabay inuu rususheena uu kula doodo wixii aan u soo dirnay oo ahayd in ay halaagaan nebi luut qowmkiisa. kadibna nebi ibraahim calayhi salaam ayaa isagoo degdegaya wuxuu u tagay nebi luut calayhi salaam qowmkiisa. markaas buu bilaabay inuu ugu soo yeero in ay alle subxaanahu wa tacaala keligiisa caabudaan oo ay ka tagaan faaxishada iyo samaynta munkaraadka, iyo in ay alle subxaanahu wa tacaala keligiisa caabudaan oo ay ka waantoobaan baadida ay ku sugan yihiin, iyo in ay alle u soo laabtaan oo ay dembidhaaf weydiistaan subxaanahu wa tacaala. kadibna malaa'igta ayaa markii ay maqleen waxa uu sameeyey nebi ibraahim calayhi salaam iyo u naseexayntii uu u naseexeeyey nebi luut calayhi salaam qowmkiisa, waxay ku yidhaahdeen, yaa ibraahim acrid can haada innahu qad jaa'a amru rabbik wa innahum aatiihim cadaabun ghayru marduud. waxay yidhaahdeen, ibraahiimow alle amarkiisa waa la soo qadaray, mana jirto meel looga cararo cadaabka alle subxaanahu wa tacaala. cadaabka allena waa uu yimid oo waa uu dhacayaa, mana jirto cid ka leexin karta ama dib uga celin karta.
kadibna malaa'igta ayaa waxay aadeen qowmu saduum deegaanadooda waxayna aadeen nebiyullaahi luut calayhi salaam gurigiisa iyagoo iska soo dhigay ama isku soo ekaysiiyey dhalinyaro aad u qurqurux badan. taasina waxay ahayd ikhtibaar uu alle subxaanahu wa tacaala ikhtibaarayay iyo oogid lagu oogayay xujada. markaas bay waxay malaa'igtu qaryadooda tagtay xilli duhur ah waxayna u galeen nebi luut calayhi salaam iyagoo wejiyadoodu ay aad u nunuurayeen oo ay ka muuqatay quruxda iyo jamaalka. markaas buu wuxuu nebi luut calayhi salaam weydiiyey, yaa tihiin dhalinyaro? uma aysan sheegin xaqiiqadooda waxayna ku yidhaahdeen, waxaan nahay dad safarey ah, waxaana kaa codsanaynaa in aadna marti qaaddo. kadibna nebi luut calayhi salaam ayaa ka xishooday in uu ka diido oo uu ku celiyo dalabkooda ahaa in uu marti qaado. markaas buu wuxuu isku dayay in uu ka celiyo in ay gudaha u galaan qaryadaasi. markaas buu wuxuu ku yidhi, qaryadani waa qaryo aad u xun oo khabiis ah, mana jirto qaryo ka xun. taasina waxay malaa'igta u noqotay markhaati uu nebi luut calayhi salaam ku markhaati kacay in qowmkiisu ay yihiin qowm khabiis ah oo aad u xun. maxaa yeelay alle subxaanahu wa tacaala qowm ma halaago ilaa uu ka markhaati kaco rasuulkooda. kadibna waxay malaa'igtii ku adkaysteen in ay soo galaan qaryada oo isaguna uu marti qaado. kadibna wuxuu nebi luut calayhi salaam ka aqbalay dalabkooda oo ahaa in uu marti qaado. wuxuuna ugu yeeray in ay si dhuumaalaysi ah iyagoo isqarinaya ay soo galaan gurigiisa si aysan u arkin qowmkiisa daalimiinta ah. wuxuuna nebi luut calayhi salaam niyaddiisa iska yidhi, maanta waa maalin imtixaan ah oo aad u dhib badan. balse waxaa dhacay wixii uu ka cabsanayay nebiyullaahi luut calayhi salaam. xaaskiisa ayaa intay martidii aragtay kadibna shar u maleegtay. markaas bay intay baxday qowmkeeda u soo sheegtay in luut ay la joogaan dhalinyaro aad u qurqurux badan oo aysan weligeeda arkin dhalinyaro la mid ah. kadibna markii ay hadalkaas maqleen ayay nebi luut calayhi salaam qowmkiisa si degdeg ah u aadeen gurigiisa. markaas bay albaabka u soo gargaraaceen. wuxuuna nebi luut calayhi salaam maqlay albaabkii oo lasoo gargaraacayo. wuxuuna ogaaday in ay yihiin qowmkiisa oo u yimid si ay ugu xadgudbaan martidiisa. markaas buu nebi luut calayhi salaam ka diiday in uu gudaha ugu soo geliyo martidiisa. markaas bay intay xanaaqeen waxay ku yidhaahdeen, soo horay kaagama aynaan degin inaad rag ku martiqaaddo gurigaaga. markaas buu nebi luut calayhi salaam bilaabay in uu qowmkiisa si wanaagsan ula hadlo isagoo ka rajo qabay in ay ka waantoobaan waxa ay doonayaan. wuxuuna ugu yeeray in ay gabdhaha qaryadaas deggan guursadaan oo ay ku kaaftoomaan xaasaskooda oo ayna alle u toobad keenaan subxaanahu wa tacaala. balse kibirka iyo isla weynida iyo madax adayga ayaa qowmkiisa ku xambaaray kufriga iyo fasahaadka. markaas bay waxay ku yidhaahdeen, innagu wax dan iyo xaajo ah kama lihin gabdhaha qaryada ee nagu soo wareeji martidaada. haddii kale albaabka intaan kuu soo jebinno ayaan si xoog ah kaagala wareegi doonnaa. innagu wax kale ma doonayno dhallinyaradaas qurquruxda badan ee gurigaaga ku jirto oo martida kuu ah mooye. kadibna nebi luut ayaa aad uga cabsaday calayhi salaam waxaana ku siyaaday murugtiisa iyo caradiisa. markaas buu isagoo ku tamaninaya in uu lahaan lahaa awood uu ku celiyo ama qoom u gargaara oo garab istaaga oo ka celiya, wuxuu yidhi, low anna lii bikum quwwatan aw aawi ilaa ruknin shadiid. wuxuu ku yidhi, haddii aan lahaan lahaa awood aan ku tiirsanahay kuma aadan dhiirateen hadalkan aad tidhaahdeen. qowmkaygiyow alle u toobadkeena. alle subxaanahu wa tacaala cadaabkiisu waa mid aad u daran oo aad u xanuun badan. balse waxay qowmkiisu ku adkaysteen kufrigooda iyo faaxishadooda aadka u xun.
nebi luutna calayhi salaam gurigiisa albaabkiisa intuu isku xiray oo isaga iyo martidiisu ay gudaha ku jireen ayuu qoomkiisa albaabka gadaashooda kala hadlayay, iyadoo iyaguna ay isku dayayeen in ay albaabka soo jebiyaan oo ay soo furtaan. kadibna nebi luut calayhi salaam ayaa martidiisa u soo galay isagoo aad ugu wareersan waxa uu ku samayn lahaa. kadibna malaa'igta ayaa markii ay arkeen xaaladda iyo cabsida haysa nebiyullaahi luut calayhi salaam waxay u sheegeen in aysan bani aadam ahayn, waxayna u sheegeen in ay yihiin malaa'ig xagga alle subxaanahu wa tacaala laga soo diray oo loo soo diray in ay halaagaan qowmu luut kufrigooda iyo gaalnimadooda oo ay alle subxaanahu wa tacaala ku gaaloobeen awgeeda. jibriil ayaa intuu u yimid ku yidhi, yaa luut innaa rusulu rabbik lan yasiluu ilayk. kadibna jibriil calayhi salaam ayaa intuu ku soo baxay garbihiisa tarafkooda ku wada dhuftay wejiyadooda, ilaa dhammaan raggii qaryadu ay ka indhabeeleen oo ay noqdeen indhoolayaal aanan waxba arkin. kadibna waxay dib u laabteen iyagoo waddada tilmaamsanaya oo nebi luutna calayhi salaam ugu goodinaya cadaab iyo ciqaab adag araggoodii oo ay waayeen awgeeda. markii goodintooda iyo handadaadoodu ay siyaaday ayuu nebiyullaahi luut calayhi salaam wuxuu malaa'igta weydiiyey, goorme ayaad halaagaysaan? markaas bay malaa'igtu u jawaabtay oo waxay ku yidhaahdeen, subixii ayaa u ballan ah, qorraxdu ma soo bixi doonto ilaa qaryadan daalimadda ah ay noqon doonto meel burbursan. markaas buu nebi luut calayhi salaam ku yidhi, haddaba haddaad halaagtaan maxaa dhacaya? waxay ku yidhaahdeen, subaxdii miyaysan dhowayn? waxayna ku yidhaahdeen, luutow, adiga iyo ahalkaaga iyo intii ku rumaysayba habeennimo ka baxa qaryadan, maxaa yeelay cadaabka ayay ku waabariisan doonaan. qofna yuusan gadaal soo eegin markii laga reebo xaaskaaga, maxaa yeelay iyadu waa mid kaafirad ah, waxayna la halaagsami doontaa qoomka. markaas buu nebiyullaahi luut calayhi salaam saduum kala soo baxay labadiisa gabdhood isagoona ay la socotay xaaskiisa. markaas bay markay gadaasheeda ka maqashay cadaabka intay gadaal eegtay waxay tidhi, waa qowmaa. kadibna dhagax ayaa intuu xagga samada ooga yimid halkaas ku halaagay, waxaana yeeray codad aad u waaweyn oo dhulku uu la gariiro oo u eg sida gugaca oo kale balse aad uga daran. waxaana dhulka ka soo dildillaacay foolkaanno aad u waaweyn, samadiina waxaa isqabsaday dab aad u waaweyn oo ololaya, waxaana dhulka ooga soo baxay dab ololaya, sidoo kale waxaa samada looga soo roobeeyey dhimbilo naar ah. kadibna jibriil calayhi salaam ayaa intuu garabkiisa hoosta ka geliyey qaryadooda kor u qaaday oo samada u dhoweeyey ilaa laga yidhi waxaa samada laga maqlayay qaylada diiqooda iyo eeyahooda. wuxuuna alle subxaanahu wa tacaala ku soo roobeeyey dhagaxaan dhoobo ka samaysan oo mid walba uu ku qoran yahay qofkii loogu talagalay magaciisa. kadibna jibriil calayhi salaam ayaa soo dabagediyey qaryadooda waxaana lagu soo roobeeyey dhagaxaan naar ah. kadibna waxay qorraxdii soo baxday iyadoo deegaanadii saduum aysan lahayn wax aathaar ah oo cid ku noolna aysan jirin. wax walba intay gubteen ayay carro isku beddeleen. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.